wafdi culus oo hogaaminayay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ay kamid ahaayeen maareeyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland Professor Xasan Cali Cismaan gudida dhismaha wadada Ceeri Gaabo iyo xildhibaano ka tirsan aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa maanta duleedka magaalada Kalabayd waxay si rasmi ah ula soo wareegeen qalabkii u horeeyay dalka soo gaaray ee lagu dhisay wadada Ceeri Gaabo. qalabkan oo ka soo degay dekada dalka Djibouti ayaa waxa uu ka koobnaa cagafyo iskarogooyin iyo gaadiid kale oo loogu talagalay dhismayaasha wadooyinka Soomaaliland. waxaan ugu horeyn halkaasi ka hadlay oo ka warbixiyay qalabkan maareeyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland Professor Xasan Cali Cismaan. maanta runtii aniga shakhsi ahaan waxay tahay farax weyn guud ahaan shacbiga reer Soomaaliland iyo xukuumadda reer Soomaaliland dhamaantood waxay tahay farax weyn iyadoo maanta munaasabadani aan ugu dabaaldegayno runtii qalabkii ugu horeeyay ee RDA wakaaladda horumarinta wadooyinka la soo degtay. qalabkaasi wuxuu ka kooban yahay saad arkaysaan 4 baabuur oo waaweyn oo kuwa carrada qaada ah, 2 grader nooca loo yaqaano, 2 sheewal oo kuwa ciidda rara ah, 1 baaldowsar, booyad iyo bahalka lagu xambaaro baabuurta oo la yiraahdo abraar oo ka agtiina taagana. waxa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay xubno kamid ah gudida dhismaha wadada Ceeri Gaabo waxaana kamid ah hadaladoodii. sharaf weyn bay noo tahay ama gudida ha ahaato ama dadweynahan reer Gabiley iyo reer Kalabayd ha ahaato iyo Togwa Jaale iyo inta agagaarkeeda oo dhan iyo Gabiley iyo aad dhulkaad garanaysaan mar haddaanu maanta halkan ka hor tagnay oo ay halkan noo taagan yihiin oo ay arkaysaan taas sharaf weyn bay noo tahay. wax qabad baynu u dhaqaaqnay wadadu maanta waxay doonaysaa reer Soomaaliland oo dhan intani waa horumar ya 100 kiiloomitir ee maanta dawladdu qalab qaadatay ee ay dhisayso ee lacagteedii gacanta lagaga hayo ee qalabkaas ka yahay 100keedii reer Soomaaliland hadaynu nahay way dawladda kula tartanaa hadii alla yiraahdo ay ceebayntan iska dayno waxna cuni mayno waxna loo dhiibo waana laga xisaabtamay waa transparent shilinku lumi maayo gambadu lumi mayso dawladdu waxay cuni lahayd way haysataa haday rabto inay ka qabsato yaa ceebtaha la joojiyo annagana ceebtaha laga daayo. waxa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay Suldaan Siciid oo ah suldaanka gobolka Sanaag iyo Caaqil Weerar oo ku hadlay afka gobolka Gabiley. salaanka dib maanta waa maalin farxad leh, waa maalin farxad khaas ahaan u siiyay gobolka Sanaag ee ka go'naa gobolada inteeda kale kumaanu riyoonin oo ismaanu lahayn waxa imanaya in dawlad Soomaaliland ay gacanta u qaado oo dhisto. maanta waxaanu aragnaa oo aynaha iyaguna tuseen oo Ilaahay nagu simay iyadoo gaadiidkii wadada bilaabayay oo aragtaan oo indhihiina ku aragtaan ay horteena joogaan. Allahu akbar. Soomaaliland ha noolaato madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ha noolaado, wasiirka madaxtooyadu ha noolaado, gudida wadadu ha noolaato. maanta waxaa sharaf weyn oo alle ma ilaawaana Ceeri Gaabo aad bay nooga fogtay. waanu ka daawanaynay tiifiyadii arrimaha gudida wadada wasiirka madaxtooyada raggu siduu u waday oo halkaasaan ka daawanayn maantana guriga iyagii bay noogu soo gashay. gabagabadiina waxaa hadalka soo afmeeray wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan waxaana kamid ah hadaladiisii. aad baan ugu faraxsanahay ilaahayna subxaanahu wa ta'aala waa ku mahadinaya inuu inoo suurtageliyay nimadii madaxweynaha in qalabkii inoo yimi hortiisa inoo timi. qalabka sidii uu maareeyo sheegay 12 shay baa hadda joogo yaala waxna way soo socdaan. sidoo kale waa fayska koobaad intii loogu tala galay ee wadada oo ahayd qalabkii hadeeyeen cagafyadii ka daalimayno tacabka aan wadooyinka ugu jiro ka daalimayno waxna noo dhimi mayso iyaga wax isu dhimaya inta wax ka sheegta waxaan aaminsanahay qof kasta oo muwaadin ah oo wadankiisa jecel maanta inuu ku farxayo, qof kasta oo qalbigiisa uu ku jiro xanuun oo wadanka aan la jeclayn horumar inuu ka naxayo. waxaan leeyahay ilaahay kuwana ha caafiyo inta muwaadiniinta ah ee ku jecel waxaan leenahay waa kaasoo indhihiina ku arkaysaan waana wadaynaa joojin mayno. waa Cabdikariin Maxamed Cabdi Qaamuuska TV-ga caalamiga ee Royal TV gobolka Gabiley.